assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi oo aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maantu ay ahayd maalintii 328aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku. daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsan tahay. haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskrayb, muuqaaladana inoo laygareeya inoona sheergareeya mahadsanidin. daawadayaal halxiraalaheeni maalinimadii shalay ee ahaa sawirradan idiin muuqda maxaa ku jira wax la cuni karo waxaa markii ugu horraysay ka soo jawaabay shakhsiga lagu magacaabo cabduqaadir maxamed agey uu isagu inoo sheegay inuu yahay shirimbiska afqalaadba ha ku sheegee. shirimbisku waa aaragoostada. halxiraalahaasuna sidaas ayuu ku furan yahay. shakhsigaasuna ku soo codsan karaya barnaamijaynu u samayno. halxiraalaheenna maalinimada maantaana waxa uu noqonayaa daawadayaal, askarigana waxa uu soo gaaray daaqad meherad ganacsi oo baabuur lagu burburiyey. waxa uu meesha ku arkaa taayir baabuur, waxaana goobta ku sugan 2 qof oo baabuur wadata. labadaa qof mid ka mid ah ayaa muraayadda burburiyey. marka uu u tegay 2dii qof weydiiyey qofka dhibaatada geystana labaduba waa ay dafireen. ninkan iyo naagtan waxaa lagaa doonayaa inaad soo saarto labadooda kii burburiyey muraayadda. fadlan jawaabta halxiraalahan nagula wadaa qaab kumentiya mahadsanid. yukraaniyiintu waxay sheeganayaan si kastoo ciidamadooda ka dagaalamaya bakhmud ay ugu awood badan yihiin kuwa ruushka ahi, haddana inay dagaalka halkaa ka sii wadi doonaan. 24 saacadood lasoo dhaafay waxay sheegteen inay ciidamada ruushka ka laayeen 221, 300 oo kalena ay ka dhaawaceen. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka waxay sheegtay dagaalka tuulada bakhmud 24 saacadood lasoo dhaafay inay ku dileen 210 askari oo yukraaniyiin ah. sidoo kale waxay sheegtay inay ciidamo badan oo yukraaniyiina ku laayeen soodinta gobolka Donetsk. duqeyn ka timid ciidamada ruushka ayaa la sheegay inay 3 qof ku dhinteen magaalada ku taalla koonfurta dalka Ukraine ee Kherson. taliska guud ee ciidamada Ukraine waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in ay weeraro hor la tuulada ka bilaabaan una diraan ciidamo badan. wasaaradda gaashaandhigga yukraaniyiintu waxay sheegtay khasaarada duqeymaha ciidamada ruushka ay u geysanayaan dadka yukraaniyiinta ah inay yihiin kuwo aan laga soo kaban karin. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ukraine Dmitry Kuleba waxa uu ka codsaday dowladda Jarmalku inay dedejiso sidii ay rasaas iyo kaarayaal hor loola soo gaari lahaayeen yukraaniyiinta. dowladda Iiraan waxay sheegtay in heshiis la gashay dowladda Ruushka, heshiiskaas oo ay kaga iibsanayso diyaaradaha casriga ee Su-35. heshiiskan ayaa imanaya kadib markii xiriirka dalalkaas uu wanaagsanaaday dowladda Iiraan ay Ruushka ku caawisay daroomada ay kaga dagaalanto gudaha dalka Ukraine. dowladda Ingiriisku maalinimadii maanta ahayd waxay qoraal rasmi ah u dirtay guddiga maamula ciyaaraha fudud ee adduunka. guddigaas oo ay ka codsanayso inaanay u ogolaan olombikada 2024 Faransiiska lagu qabanayo inay ka qayb galaan ciyaartoy u dhashay dalalka Ruushka iyo Belarus. sidoo kale dowladda Ingiriisku waxay qoraallo u dirtay shirkadaha iyagu hay'adda caawiya kana bixiya dhaqaalaha oo ay u sheegtay in looga baahan yahay inay joojiyaan ciyaartoy labada dowladood ka yimi. dowladaha reer galbeedka ayaa indhawaalaba iyagu daba joogay dhalinyaro ka imanaya labada dal oo ciyaarta ka qaybgelaya. waa dowladihii sheegan jiray dimuqraadiyadda oo haatan iyaga awooddoodii oo dhammi ku soo koobnaatay inay ciyaartoy caydsadaan. aynu ognahay weliba iyagu inay yihiin kuwo aan hubaysnayn. dowladaha midooda Yurub waxay sheegeen ballana qaadeen 3 bilyan iyo 700 milyan inay ku bixinayaan hubab qadiimi oo laga dhex iibinayo dowladaha midooda Yurub lana gaarsiinayo dalka Ukraine. inkastoo yukraaniyiintu indhawaalaba Yurubiyaanka ka codsanayeen iyo reer galbeedkaba hub casriya in lala soo gaaro. dowladda Maraykanku maalinimadii maanta waxay ku eedeysay dowladda Ruushku inay faragelin qaawan ku hayso jamhuuriyadda yar ee Moldova, doonaysana inay burburiso gebi ahaanba dowladda halkaa ka dhisan kana dhisto mid iyaga taabacsan. waxayse ballan qaaday dowladda Maraykanku inay taageerayso dowladda xog walba ka hesho dowladda Ruushka ay u gacan gelinayso. dowladda Maraykanka ayaa jacayl ay u qabto Moldova oo caawinayn, balse waa mid ay ku xumaynayso dowladda Ruushka. waxaan ognahay dowladda Maraykanku inay tahay tan ugu horreysa marka ay noqoto burburinta dowladaha. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov waxa uu sheegay kulankii ay kulmeen xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken oo ka dhacay magaalada New Delhi toddobaadkii la soo dhaafay inuu ahaa mid iska caadi ah, balse ay ka muuqato xogayaha beentii lagu yaqaanay reer galbeedka. kulankiisuna aanu ahayn mid wax soo kordhiyey. dalalka toddobada iyagu isu aqoonsaday inay yihiin kuwa ugu warshadaha badan adduunka ayaa sheegay dowladda Ukraine inay ka caawinayaan dhanka tabarta. waxay sheegeen in dhawaalaba ciidamada cirka Ruushku inay ku mashquulsanaayeen
sidii u burburin lahaayeen tabartii Ukraine. Haatana dowladahaas oo markan ay hogaaminayso dowladda Japan waxay ballan qaaday inay ka caawinayso Ukraine arrimaha tabarta. Dowladda Japan ayaa waxay tahay mid ka mid ah dowladaha adduunka ugu neceb Ruushka, waxaana jira 4 jasiiradood oo Japan ay ka haysato dowladda Ruushku. Jasiiradahaas ayaa haysatay wixii ka dambeeyayba dagaalweynihii labaad ee adduunka, waana sababta ugu weyn ee Jabaaneysku u neceb yihiin Ruushka. wasaaradda gaashaandhigga ee Ukrainiyiintu waxay sheegtay intii ay ka socdeen dagaalada tuulada Bakhmut ee istaraatiijiga ah inay ku laayeen in ka badan 500 oo askari oo Ruush ah. balse waa dowladda Ukraine oo maalinimadii lasoo dhaafay oo keliya sheegatay inay ku dishay 221. hadiyo gooraalana waxay sheegan jirtay tirooyin intaa ka badan oo marka la isku dardaro ka badan 500 oo ay sheegteen. daawadayaal intaa waxaynu kusoo gabagabaynaynaa xogaheenu ka soo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta ay ahayd maalintii 328aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay Ruushku. dabcan wixii xogaha ku soo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. fadlan muuqaalka laygaray, sheer garay oo la wadaag asxaabtaada hana ilaawin. laygtaada iyo sheertaadu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali oo adiga kaa timid. sidoo kale waxay xoojinaysaa muuqaalka isagu shaashada kaaga muuqda oo mid hore kuu dhaafay ee daawo. ku xirnaada kanaalka mahadsanidin. daawada haddii aad tahay daawada kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsan tahay. haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn, fadlan kanaalka subscribe, muuqaaladana inoo laygareeya, inoona sheergareeya. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.